taariikh cusub ayay qorayaan reer Muqdisho beritoole taariikhdaas oo ah 2025 bisha 12aad 25teeda waxayna u dareeri doonaan doorasho dhawaad ama ka badan 500,000 oo qof ayaa waxay qaadatay kaarka codeynta kaasoo ay ku muujin doonaan Muqdisho inay nabad tahay Muqdisho in ay soo dooran karto degmooyinkooda qofka hogaami lahayd ay kula xisaabtami lahaayeen wax qabadka iyo bulshada canshuurta bixisa hadhowti markii uu ka gaabiyo qofkaas oo kale hadii uu wax fiican qabtana marka dambe ayay ugu celi doonaan Muqdisho marka maadaama ay tahay magaalada ugu weyn caasimadii ay tahay Soomaaliya maanta markii lagu arko Muqdisho inay codeynayaan Soomaaliya oo dhanna cod ayaa laga qaban karaa adduunkana wuxuu aamini doonaa Muqdisho inay nabad tahay waana sida ay tahay aaminaad maahan Muqdisho way isbedeshay sanadadii ugu dambeysay maantana dadka Soomaaliyeed ee ku nool ee soo dhex joogay ayaa laga weydiin karaa Muqdishada cusub iyo sidoo kale amnigeeda iyo sida ku soo toosaan quruxda bilicda maanta loo jeedo oo qof kasto dalxiis ah marka uu tago oo la yaabo aniga hantii marka tagay waa la soo yaabay Muqdishadan saamay qurux badneed saamay u fiicneed markasta inaa soo laabto qasab Muqdishada cusub adiga ayaa bari qalinka ku xariiqi doona Soomaaliyana taariikh ayaad u gali doontaa 54 sano ka bacdi doorasho la qabto waliba laga qabto caasimadda waa taariikh cusub hadhowtiin waxa dooran doontiin reer Muqdisho tihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir magacaabid dambe waa dhamaatay maanta marka hadii tilaabaas la qaado taariikhdan cusub ee qormayso iyo tilaabadan iyo albaabka xirnaay oo xadde qof kastana uu ka cabsanay siyaasi kastana oo dhahay yaa la taabanin iyo dibi doontiin marka taariikhda cusub qof kasto kaarka haysto adigoo shafka taagan yahay soo kac safka istaag coday hadaa rabtid ha taageerin xisbiga qofka aad u codeynaysid laakiinse taageer qofkaas oo qofkaas codkaaga si oo adiga wax kugu qabto nolosha asaasiga sida wadooyinka isbitaal iyo sidoo kale iskuulada maadaama aad bixisid canshuur xaqna aad leedahay bari ina la xisaabtamtid barina hadii wax qaban waayo waxa leedahay naga leexo laakiinse hadaad cod bixin lama xisaabtami kartid taariikh cusub oo Soomaaliya iyo Muqdisho insha Allah guul